waxaan ogsoonnahay in noole kasta oo dunida ku nool inuu mar uun dhiman doono, laakiin waxa lagu kala duwan yahay waa dhinaca cimriga. bal haan wada eegno. Xayawaanka Mayfly waa xayawaanka ugu muddada yar leh, waxa uu noolaan karaa 24 saacadood keliya kadib uu dhintaa. Waxaa ku soo xiga Dragon Ants oo ah quraanjada nooc ka mid ah, muddada ugu badan uu noolaan karo 3 cisho keliya. Labka kaneecada inta ugu badan uu noolaan karo waa usbuuc. Waxaa ku soo xiga duqsigu 25 cisho ilaa 15 inta u dhaxaysa ayuu noolaan karaa. Dhiddiga kaneecada waa tan nafta inoo keentay ee inta badan inaga cabta dhiigga, waxay noolaan kartaa 1 bil. Waxaa ku soo xiga duqaanka, waxa uu noolaan karaa 6 bilood. Waxaa ku soo xiga jiirka ama dooliga, waa 1 sano. Sidoo kale xamaamka 4 sano. Shinnida muddada ugu badan ay noolaan karto waa 5 sano. Kulley boqoradu way ka cimri dheer tahay. Waxaa ku soo xiga digaaga, ilaa 9 sano way noolaan kartaa. Eyga ilaa 13 sano ayaa ugu badan inta uu noolaan karo. Shabeelka ilaa 15 sano. Bisada 16 sano. Waxaa ku soo xiga lo'da ilaa 20 sano way noolaan karaan. 20 waa lagaga faa'iideysan karaa caanahooga. Libaaxa sidoo kale 20 sano ayaa ugu badan inta uu noolaan. Eagle-ka wuxuu noolaan karaa 32 sano. Xayawaanka Panda wuxuu noolaan karaa 35 sano. Faraska wuxuu noolaan karaa 40 sano. Masha Allah, isma balahaynba intaas uu noolaan karaa. Waxaa ku soo xiga geelaasoo inta badan aan rarano, kaasoo muddo badan uu noolaan karo isagoo biyo la'aan. Waxaa ku soo xiga bini'aadanka, waxayna u dhaxaysaa 68 ilaa 73. waa inta ugu badan ee aan noolaan karno bini'aadan ahaan. Waxaa ku xiga maroodiga, 70 sano ayaa ugu badan inta uu noolaan karo. Yaxaaska ilaa 95 sano ayuu noolaan karaa yaxaasku. Sidoo kale diinka wuxuu noolaan karaa 125 sano. Way jiraan xayawaano intaa in ka badan noolaan kara, laakiin waa kii Ilaahay quraankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala: kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.